بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزد لنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رجع إيجا وعصباتك أفر كم إذا ولا قبلها ولا نودي عصبيا sababtii uu asabiyana waan sheegay gabdhahaas yaa saaxibaatu fardin aha markii faradka qaadayay waxa loo shardinayay inda adam almu'assib bay ahayd hadii mu'assib joogo hoosh sida halmis wuu diidaya inay faradka qaataan buu diidaya maxaa yeelay inay ka badso diidaya ama ay la sinatu diidaya hal akhi hal uqtadan uqtada u fardino akhi niskaaru qaadanaya wala la sinmaysa haddii laba akhiyihiina niska haray iyo laba ruba u kala jabsanayaan marka iyadii baa mid kasta iyaga ka mid ah ku laba laabantay labadaaba markaa qur-aanku waa diidaya lidakari mitlu xaddi lunsayayni waa inay sa ahaataa inay la sinaata maaha in ayadu ay ku laba laabanto oo liluntha mitlu xaddi dakarayn in hawshu noqotona maaha saa awgeed ha ku laba laabmo gabadha ma la neceb yahay maya lama nibay gabadha nabiga gabdhaha aad buu u jeclaa alayhi salaatu wasalaam almu'nisaatu alghaaliyaat buu oran jiray gabdhaha xabiibku gabadhiisa faatima ahayd radiyallahu anha az-zahraa markuu xagga iyada kusoo socota arko go-iisu dhulka u dhigi jiray go-iisii yuu dhulka u dhigi jiray halkan ay fadhiisay gabartii buu oran jiray almu'nisaatu alghaaliyaat gabadh la soo naas nuugtay markuu arkay xunayn markuu ka soo laabtay ay tiri walaashaa baan ahay calaamadii waxbay isku garteen markaa haddaad doontay walaalkaa raac mucazaza mukarama waan ku darajeynaynaa haddii kale waan ku xurmaynaynaa waxbaan ku siinaynaa qowm carruurtaada la joog buu yidhi marka carruurtii dadkeedii bay dooratay wuu qaaday nebigu alayhi salaatu wasalaam gabdhaha aad buu u darajeynayay xabiibku ilan carabtaa gabdhaha liidi jirtay waaga hore wax jira maha oran jirin gabdhaha waa rixim socda gebigooduba maanta wuu ogaaday ninka gabar dibadda u aaday waa meel darane in gabar la geema hayni mahram la'aan bay xaggaa u safraysaa qaawraan iyo qurur iyo diin la'aan bay ka qaadaysaa hadda odageen wuxuu iska rabaa labada shay loo soo tuurayo unbuu iska rabaa gabadha diinteedii xaafidi maayo gabdhaha allah u naxariisto ninna halkaas u safriyey ninna nolosheeda xaafidi maayo nin laa shay ah yuu intuu xoogaa lacag ka qaato qoorta u gelinaya mala nacay gabadha markaa lagu tuurayo nimaan kufu ahayn dadnimo aan lahayn diin aan lahayn xishood iyo qurux midna aan lahayn shay gabadha ugu xidhato nimaan lahayn yuu aabbahay ku tuuraya intuu xoogaa lacag ka qaato sida raggu gabdhaha qurxoon u doortaan yay gabadhoon u jeceshahay ninka magaca leh oo quruxda badan oo diinta leh oo ninka wanaagsana xaragada badan udgeya saasay u jeceshahay iyaduna laakiin aabbuhu taa fiirin maaye xoogaa lacagta unbuu fiirinaya isagu yalla ha socotuu leeyahy hataa haddii ninka noocaasa qiimiga aan leyn gabadha hataa ay la timaado waa inuu aabbuhu ka dhiciyaa kan nambarkaaga maaha waa inuu dhahaa aabbihi lacag kasta ha keeni la yeeli maayo ninna halkaasu ku tuuray gabadhii oo diinteediiba saasuu u dayacay ninna halkan xabsi buu ku tuuray nimay isfahmaynin allahu mustacaan gabdhaha iyaa rixin badan ninka hadda gabadhiisa dibadda geeyey markuu la hadlo aabe bay soo leedahay abtii baa teleefon u diray abtii bay leedahay amaa wiilku teleefon ka xiranaya sheekh rabbuna allah ma nimankaan u shaqeynaa anagu leeyahy war ilahay u qaraabtaga ya risqiga doonta nimanyo aniga daayi saasuu leeyahy wiilku hadda waa ka dhabo maa cinduhu shay dibadda waxba laguma hayo gumaysi iyo qurun iyo diin la-aan rafaad baa lagu jiraa annaguna waxaa ninka halkaa tegey inagoo laduu xadin cadiim hadda taasaaba dembi noo ah annagoo ninkii halkaa tegey oo diin la-aan buu ka qaadayaa shil ma haystee aan ammaanayno waa fiican yaha aan dhahnay lafteenna baa istikfaar u baahan sheekh marka waxa aan qiimeyno annagaa istikfaar u baahan gabdhaha waa la necab yaha maaha iyagaaba naxariis badan maanta haddaad gabowdo ta dharkaaga meedhaysa oo gogasha ku hufaysa
oo ku xanaanaynaysa waa gabar wiilka kale uu wanaagsan yaa haweenaysa kaaga tagayo wal aabbo ugu ab anuu saaq waa sii tagaya bakhaarkii xagga salaadiya wuu leeyahay tag caaw soo hoynaya markaas gabadhu ninku qabaday gabar ilaahay ka baqay ay ahayn hatta haday ka baqayso qurunkiisa najaasiisa way dhibsanaysaa gabadhu rag badan qoys badan ku kala tagay arrinkaas yaan aragnay nin baasaas xagga igu sheekeeyo gabadhu way sii day maxaa yeelay hooyadii ba sanka qabsatay hooyada muudgiisan dha may udgiisa hooyada gal qurunka adu gal iyada maahay ya haddii ilaahay kaa siiyo waa gaar laakiin kuma khasbi karta xaq kuma lida iyada marka qofka marna aan ka ashashaynin oo cid kale aan kugu dalbanaynin oo isagoo gacanta kula geliya waa gabadha sheekh rag badan baa xataa walaalahood gabdhihii wala dhashay kuwa ay dhaleen iska badaayay iyo kuwa dhaleen iyo kuwa iska badaayay kuwa la dhashay ya xanaaneenay mid baa arkay aroor kasta halkaas geed baa la hoos keenaya geed baa hoos keenaysa galabtina galinka dambana way xeranaysaa ku dhalinyara buu markaas qalbiga waxaan ka yar gabadhu raaliysana artawati mid ducaysan bal ninkiisa wax raanaysa fiiriye maalin dambaan weydiiyo isagoo marka jaad buu aad u cuni jiray xaggaas calooshi yaa qoriya fariisteen markaas uu aad leeyahay waxa ka imaan maayo haddana waxay waa walaalkii ninkayga ma haytiri naama walaalka waa saa wax raanaysa maanin marka aruurteedii ba ka timid iyo reerkeedii ba ka timid ninkeedii ba ka soo fasax qaatay tollaa iyo walaalkii bay soo tiri marka iyadoo bintaana wataa ku xanaanaysa iyadoo ukhtaana wataa ku xanaanaysa iyadoo ummaana wataa ku xanaanaysa sheekh marka mathal malaha gabdhuhu ilaahay quraanka markuu ka hadlayay yahabu liman yashaau inaasan gabdhuhu hormaraya ilaahay wax la heli kara ma xayiirku wakaas gabdhaha u hormaray alayhi salaatu wasalaam arabtu albintu barakay dhahan lak hadda annaga ninka gabar baa ku dhalatay wajiga madoobaanaya wuu naxaya gabar saasuu leeyahay gabar waa kanzi laakiin adigu fa abawaahu waatay haydi wadada saxa mari gabadhi qur'aankii bar oo diintii bar oo asturkii bar oo ilabtii anshaxi bar ya adaa gabdhaha luminaya waxaa gabdhaha halkaas wareegaya dhammaantood waa gabdhaha guryahoodii guri diin uusan ahayn ilaa qofka tarbiyada guriguu qaadanaya kuwa yar intaa leeg ya marka baabka la soo garaaco gurigay garbasaar ku urdiya xijaabka ku urdiya intaas leegiye ilaa hooyadooda marka ilinka la soo garaaco xijaab ku urdiya arki jireen haddii hooyadu saa iska tahay iyadoo saa iska ahaanaysa marka gurigaaga marka hore guri diinad ha ahaado ida xasal manbatu xasal nabatu ciladu waa annaga ee gabdhaha maaha waxa markaa gabdhaha wajigeena yu la madoobaan marka gabadha dhalato gabadha iyo wiilku waa siman yihiin waliba ilaa gabdhaha aad jeclaataa xayuu gabdhuhu aad u jeclaa alayhi salaatu wasalaam qur'aankuna waa kaa qiimeeyo gabdha miina furuudu u qadaray waa artay inuu qur'aanka qiimeeyey haddana xuquuqdoodii iyo qur'aanku marka aad dhan kastaba u difaacaya marka gabadha waa la nacab yahay niska wiilka ha qaadato nacab maaha waliba qur'aanku wuu roonaaday aad buu ugu roonaaday maxaa yeelay aabeed bay dhaxlaysaa walaalkeed bay dhaxlaysaa hooyeed bay dhaxlaysaa inta ninku dhaxla way dhaxashaa iyaduna laakiin maal kala haysataa masalan haddii iyada la qabo ninkeedii baa biilaya haddana ninkii baa biilkeeda hayee gabadha yaan shilin la siinin lama oranin ya ila socda ninkii baa biil yaan wax la siin lama oran waa loogu ziyaadinaya maxaa yeele shanigeeda ixtiyaaj ah aadam waxay u leedahay baahidaasay caado u leedahay marka ilaahay baahideedii wuu buuxinaya wuu kabayaa ilaahay maxaa amar baa la siiyey gabadha waqarna fii buyuutikunna boqorka saa yidhi waa inuu deeqaa markaa waa inuu deeqaa gabadha iyadoo abaartaa joogta ilaahay guriga joog ma uusan oranin markay yartaana aabeed ha biilo markay naag noqotona ninkeedu ha biilo markay gabowdana wiilkeedu ha biilo
waqarna saasa amarka loo saaray inta ilaahay amarkaas uu saaray ha ku gaajooto ilaahay meesha ma oranin xaggaas raggaas loo diray oo biil la yiri iyadoo biilka la yiri hal la biilo iyadoo la yiri ya hadana loo sii dariyo dhaxalkii nisa qaadato inta ha qaadato sulus ha qaadato sudus ha qaadato unta noocay noqotaba marka ilaahay gabdhaha iyaga wuu u roonaaday ee sida gaaladu ay leeyihiin ilaahay gabdhaha ma duleeynin gaalada gabdhahooda duloobayo jaamacaday galayaan oo ka baxayaan way rafaadayaan injineereen noqonayaan ama dhaqaatiir bay noqonayaan ama halka safar dalxiis qurun bay ku jiraan annaga sateena harka joogtaa leeyahay faraha xinaha marsato waa boqorad mu'aziza mukarrama qorraxay arkin hana sataleeyay tee marka nasasha ku jirtay teena ku jirtay laakiin waxa leeyahay gabdhuhu ilmo wax barasho aruurtu gaarin inka war hadii wax barasho gaarin cilmiga waa kan nabiga tigtuu leeyimid ku leeyimid alayhi salaatu wasalaam cilmiga adduunyo aakhiro noloshina keenayay aan shixi edabtina keenayay taqwada iyo khayrka aakhiro meel lagu mar lahana keenayay waka waman yattaqi allaha yaj'al lahu makhrajan ويرزقه من حيث لا يحتسب باشو إيمانيسا شيخ كهدي لبرتو أو لغرو الشيغو وإيمانيسا باشو مركا القرآن كوان نعبيا قبل ماها مركو نينك ويلكو كل بالله ما قبل اللي يجري إساقا هؤلاء أيضا مركا ينقلين بوغلية وحا لوغو الله بالله بيا واسدا إنو مركا كأولي سوين هي وبيلك لغربو قارانك لغربو ديادي عاقلة واتي بحين جرين خطأ تاس لغربو أوجد يا إساقا لوغو بدن يا أحكا لما واجب أيضا عن سارين يا إساقا سارن ساسا لوغو بدن يا الله مستعان لذكر مثل حظ الأنثيين حكمة كوجرت تاسي هيت لكن رجي قبله وحده ويكلم مينيان ما أركيان إن أسجل لا شرفي أول اللي قبل كل واللابن مركز أنتو أفكوا وينادي يوسشيل بسيرين قبل إله لقى بقوا أرنكاس وحبض النكي كقبان كراكا قبته كقبشة واحد نوف لما أنجا إن أنجو أن آياتها أكرن شيء وقبله اللي ذكر مثل حد الأنثيين يهدي فروض لها يفروض دون أن سينو تاسيا نوغو فرن اللي المراد دين تلقى أركيان نهي هذا أنه قبله ولا لها يجها أن دخل سينو مركا تدخل نقدينيا تدخل نقدينيا واحد بدن ومد هذا أي شرع مودان وأن شرع هين ما حاسة كدقية هذا علماء دي بعد عن خودين اللي جواي شيء تان كذي اللي جواي نبى ما له نحوي لها ديال إلى حاران تا إنه مدرك سك قاتان ما مودين ويا شيء أي قاتان إلى ليهم بن مودي لو شيء يا الرائع الشيء بلغوا عني ولو آية علماء دي العلماء ورثة الأنبياء نمركز وأديك إن شيكتان ضد يا براروي ضد بدن يا براروي ومركز حق إلى الرعان نقول لكن حقي أنقرنيني مركز وين أنا وحق أعدينا شرف بينوتهاي درجة نوتهاي هدي حتى ألو دغمين أنها شرف الدرجة كوزيات سرين وإلهي وأركيا إلى الأحد اللي إسقى أحكام تيسي إلى قد بني إلهي أركو مركا أنا كدر جوبين ووحبا كوهلين الله مستعان مركا قبله دينت إلا برو وحكا ولا سمجران إنما يخشى الله من عباد العلماء هل كان سيقلي ساقبني درجة سري قاريسة رجب أقول تمية جورك حتى صدق سوا لو جور سريع قبلها دي تقان الله مستعان وتكون لدون تأذيك ولد صار يدعو لك يكون ليس أوجين بين هاي ودعية وأبقى الدين برضو لكن مركز جامعة هذا جيسو ويضيع ما يساق قبله بلنا سالور منيا نبوين بقاري دين تدي بالله ما يسا مركز قبلها ما شاء الله ودوري أن كدينه وقرنا أرنكاس هالكاس الله ودوري وقال له كوجي هاي وقرنا بحقوق سوروبي سأضرب بيلا مو إلى بيبي تأفرته أما أدبناها أدرته أما شباب أدقيسين أما هي أدبنا وشقي أتنهد وما لين كاستقدر قرحون أي قالته يسود جيسه وضد اسمه ولا غده
ragga markaas ay soo indhahooda ay soo jeediso ay saa wada fiiriyaan hadda taas bela ka buuxdaba waxay keentana wax khayr leh noqon maayaan allahu musta'aan lidakari mithlu xaddi luntayayni macnaheedu waa sidaa arbaca oo min arijaal waxaa ku tili nusqooyinka hore yucasibuuna akhawaatahum laa yucasibuuna akhawaatahum wayarisuuna duunahun waa ikhwadii wiilashoodii amaamtii iyo wiilashoodii iyo casabaatu lmawla almuctiq afartaasu ma casabeeyaan walaalahood maxay saxabaatu fardin maaha saxabaatu fardin maxaa gabadha loo casabaynaya waa in faradkaa laga burburiyo gabadhaan farad lahayn maxaa laga casabaynaya oo farad loogu burinaya meesha wax ma jiraan allahu mustacaan gabdhuhu markaa kuwa nisniska qaadaya sulusaanka qaadanayay kuwa unbaa farad lahaay yaa walaalood ku casaboobaya laakiin mar baa dhacaysa in gabdhaha laftoodu bacduhunna bacdan inay casabeeyaan ku casabo noqdaan yaa dhacda